السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهي قالقا ميل كستا أدونك دعالة سكا جوجتين وولاشين فرحية بلان وإذن لا اسمغل أركتي وناكسن وحيسا له كسو دوادا channel كينا فرحية بلان channel هداي تاي مركي كوغوريسي ديم حاشويسا سبسكرايب لايك تاي شير تاي كودا هالي مينا إن شاء الله وأوغاهي وحاتين داد آد وقلبي وناكسن ما شاء الله هيركانا دادك نسو قارسي وإذنك وإذنك قم هاد علينا مرة والبقر بستاقينا آدي آدا ومحسنتهين maanta kaliya soo fadhiyo shukri iyo faaiise iyo dadkaas waa ka soo tagay maanta aniga iyo asxaabtayda adinka iyo aniga ba maanta wada sheekaysanayna insha Allah maanta maxaa idin wadaa maxaa rajeynaysiin maxaa filaysiin maxaa isleedihiin maadaama farxiye kaligeed soo fariisatay maxay wadaa baacindiga idinka jira runtii maanta arrin murugadeedana leh waana qaadashadeedana leh ayaan rabaa inaa idinla wadaago markaan idinla wadaaga ka bacdina walaalahayga Soomaaliyeed ee maqlaaya ee codkayga u gaari doona insha Allah codsi ayaan rabaa inaa idin dhiibto hadii Ilaahay yiraahdo arrintaas markaan ka sheekeeyo dad badan oo idinka midana way og yihiin runtii intaan ogeyna waxaan rabaa inay hadda ogaadaan and then codsigayga ayaan rabaa marka u dambeysana ina idin soo gudbiyo insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa ina iga aqbali doontiin codsigayga ay idin soo gudbisado ay iga aqbali doontiin insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo okay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno runtii arrin ayaa jirto oo aan ka seexan waayay muddooyinkii u dambeeyay ilaa aan gaaray inaan hurdada aan ka soo salalo oo aan ka soo boodo markaan jiifsado oo aan gamco maadaama arrintaas mar walba qalbigayga ay ku taagan tahay runtii heer waxa ay gaarsiisay inaan hurdada xitaa ka soo boodo ay gaarsiisay subxaanallah marka maanta waxaa go'aansaday in arrintaas idinla wadaago insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo arrinta aan hore u guda galno waqtigu sii dheeraanin ina taqaaniinay u badan tahay wayba u badan tahay waana aaminsanahay dad badan oo arrintaas wax koog inay jiraan waxaa jirta gabar social media ku jirta oo walaasheena oo hooyo ah oo degan dalka Sweden oo la yiraahdo Faadimo Buraanburtooy dadka badankiisa way wada yaqaanaan maadaama ay tahay qof horeyna famous u ahayd oo ah gabar buraanburada ku caan baxday haddana social media ku jirto oo youtuber nala ah dadku way wada yaqaanaan gabadhaas ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo gabadhaas sida aan wada ognahay ama badankiina ogtihiin ilmo ayaa laga haystaa muddo 10 bilood ku dhow oo gaaladu ay ka qaateen ilmahaas waa 7 ilmood ba Ilaahay ku irsaaqay 7diiba waa la qaatay arrinteed waxay soo jiitamisay muddo 10 bilood ah bal qiyaas hooyada 7 ilmood oo ay dib iyo rafaad iyo raaxo intaba ay isku jir ay ku soo dhashay hameyno madow bila sabab ilmihii lala wareegay kuwa kamida aysan 10 bilood meel ay ku nool yihiin maqal iyo muuqaal midna aysan ku arkin ma dhinteen ma nool yihiin hooyadaas maxay dareemaysaa ayay in la tahay guriga 7 ilmood laga kaxaystay sidee buu u egyahay ayaa dareemaysiin asxaabay maxaa dareemaysiin runtii dareenkan dadku ayagoo wada dareemayo oo xanuunka leedahay ay wada dareemayaan haddana si gaar ah waxa uu si dareemi karo qofkii hooyo ah ayaa u si dareemi kara xanuunka ay leedahay ilmo aan dhashay oo dib iyo dheefs kuba soo dhal 9 bilood caloosha ku soo siday soo korisay soo dhashay xanuun iyo dib ka soo martay markii cadow uu qaato qof islaam hadduu qaato xitaa wax weyn ma ahaateen gaal uu ka qaato oo diintiisa aad u cabsanaysid oo naftiisa aad u cabsanaysid bal hooyadaas maxay dareemi lahayd baad u malaynaysaa ilmihii xitaa haddii qayb la qaato oo qayb ay guriga joogto wax qalbiga ku qabowsatid ayaaba haysataa
laakiin 7 ilmoodba hal mar ayaa duuduub loo qaatay. 7 ilmood saan u malaynayo Faadimo Buraanbur ani isma naqaano, social media baan ka arkaa gabadhaas mar walba. Channelkeeda ayaa subscribe iyo mar walbana fiidiyoyadeeda ayaa ii soo dhaca. Mar walbana fiidiyoyadeeda waa daawadaa. Anoo intaa rajaynaya bal fiidiyowgan soo dhacay ama ilmihii heshay bal maxay ku soo kordhay. Marka gabadhaas si gooni uma garanayo social media baan u garanaya gabar inay social media oo Soomaaliyeed oo social media ku jirta ay tahay. Marka sida ay ayadu fiidiyoyadeeda ay ku sheegtay ilmahaas waxa u maleynaa hadaan khaldanayn 3 jir u yar. Ilmaha 3 sano jira imagine oo 10 bilood ka maqan oo meel ku nool yahay aad ka warhaynin. runtii alxamdulillah gabadhaas aad iyo aad ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigeeda u sugay oo wuxuu ku sugay samir iyo iimaan ayaa Ilaahay ku sugay. ma sha Allah tabarakallah. mar walba oo aan fiidiyoyadeeda daawado waxaan la ilmeeyaa intaana ilmaha dareenkooda aanan la ilmeynin gabadhaas Ilaahay samirka uu siiyay. alxamdulillah rabbil caalamiin. Ilaahay waxa uga bareenaa samirka inuu ugu sii wado. sida ay Faadimo sheegtay ilmaha labadii ugu waaweynaa ayaa ma dhaweyto FaceTime ayaa laga tusay ama video call ayaa laga tusay. ilmihiina isku meel ma joogaan. labadii waaweyneed oo meel gooniya joogta ayaa la tusay oo video call laga tusay. maadaama ay yihiin ilmo ayagu dee hadda 14 jir iyo say sheegtay oo dagaalamayo oo dhahayo hooyaday ayaa rabnaa waay meeshaan nooga haysiin ayaga maadaama ay cod leeyihiin oo ay dagaalamayaan waxa suura gashay in Faadimo ay xaajigeeda bal la tuso. laakiin ilmihii yaryara oo 3 jirku u yaraa meel ay ku nool yihiin jaan iyo cirib meel ay digeen lama garanayo. arrintaas runtii aad iyo aad bay dareen iiga gelisay oo aan aad iyo aad aan uga seexan waayo. ilaahayna in badan waa u bariyay insha Allah. muslimiin badan oo Ilaahay u bariyayna waa jiraan. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ducada mu'miniinta uu aqbalo maalin iyo ducada hooyada qalbigeeda u lalaayo insha Allah ta'ala. marka waxa dhacday horta ku hormare ayadoo 7 ilmood saas loo haysto ayaa haddana gabadhii Faadimo Buraanbur Ilaahay wuxuu siiyay uur ilmo caloosheeda ku jira ayaa jira oo ay rajaynayso asbuuciyadan inay dhasho insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabad ku kala keeno. arrinta aniga isii murug gelisay oo runtii aan ka seexan waayo waxa waaye inay dhaheen ilmahan calooshaada ku jirana marka isbitaalka ku dhashid ayaaman isbitaalka ka qaadanayna. waa ilmihii 8aad oo ay caloosha ku sido. 7 laga haystay kii caloosheeda hadda galayna isbitaalka ayaaba lagu sii balansanayaa oo la leeyahay marka isbitaalka ku dhashid guriga uma qaadanay sida anaga qaadanayna. bal arrintaasna Soomaaliya qiimeeyo. bal hooyada qalbigeedii oo lalaay Ilaahay cawil uga dhigay uur kale oo uurkiina ilmihiina la yiri haduuba Ilaahay nabad kugu kala keeno. ayagu hadda nabadna ma yaqaanaan oo hadaa dhashid bay iyagu iska leeyihiin. laakiin inuu ufka imaanayo nolol ku imaanayo in kale Ilaahay ba og. way u sii sacabtumanayaan inay asagana sii qaataan oo kuwii kale ka dabageeyaan. gabadhaas maanta waxay inooga baahan tahay garabka ay inooga baahan tahay ma ahan maal. bini aadanka waxa ugu culus oo la weydiista waa maal. maanta qofka hadaa dhad $100 si inuu cabaar jeestaa laga yaabaa. bini aadanka maalku waa ku adag yahay. maal inooga ma baahna Faadimo. waxay inooga baahan tahay wax qof walba awoodo. faqiir walaa maxal dhaha taajir qof uu awoodo inooga baahan oo duco inaynu u wada ducayn oo qof walba uu Ilaahay dartiis intaad 2 ragcadood tukatid hooyadaas iyo aabahaas qalbigooda oo la leeyo in Ilaahay cawil iyo nasri degdeg Ilaahay uu siiyo oo faraj khayr qaba Ilaahay u furo oo awlaadoodii gaalada gacantooda Ilaahay ka soo farmuroojiyo. inaynu Ilaahay u barino ayay gabadhaas inooga baahan tahay. runtii arrintan ka sheekaynteedu waa igu si adag tahay. waxa dhacday sabtidii subaxii sabtida baan salaad subax baan tukaday.
salaad subax markaan tukaday waxaa jirtay 10 igu taagnaa oo aan rabay habeenkii markaan seexanay qorshahaygu ahaa inaan iska diyaariyo salaad subax markaan tukay 10kaasna 10 quraan ayuu ahaa taxfiid quraana baan waday marka waxaan isdhahayay salaad subax habeenkii iska daalanaa waa iska jiifsaday soo wax isdhahay salaad subax markaan tukatid hurdada ha ku laabane 10kii diyaari soo salaad subax haddaan tukadayba hurdo indhii baa kala qaadi waayay markaas waxaan is ilaalay xogaa inta iska jiifsada hadhow soo kar oo quraankaaga hadhow akhriso waa jiifsaday saasta u jiifsaday waa qiso yar oo rabo riyo yar oo subaxa ay soo madhay oo cajiib ah oo rabo inaan idin la wadaago saasta u jiifsaday waxaan is leeyahay gambar ayaan ku fadhiyaa gambar waa wada garanaysan u maleynaya gambarka yar ee lagu fariisto kursi maaha gambarka yarka ma aqoonina Soomaalidu magac kale dad u yaqaanaan soo gambar ayaan ku fadhiyaa kitaabkii ayaanan haystaa oo aan leeyahay maadaama 10 aan ka walwalaayay oo igu taagnaa markii hore quraankii ayaan akhrinayaa quraankii anoo akhrinaya waxaan is leeyahay Faadumo iyo nin la socda ayaa hortayda soo maray ninka wajigiisa waa la iga qariyay bal qisada Ilaahay qadaraha Ilaahay wajigiisa ninka leema tusin laakiin Faadumo wajigeeda kaliya oo arkay ninka laakiin waxaan arkayay shaatigiisa iyo surweelka uu qabo bas ayaan arkayay Faadumo laakiin ayada dhamaanteeda waa wada arkay soo gambar gaaban ayaan ku fadhiyay kitaabkiina saana u haystay Faadumo hortayda iyo ninka oo ka horeeyo hortayda ay soo mareen markay geeskaas oo kale ka soo socdeen oo halkaas oo kale soo maraayeen bay hadal Faadumo soo bilowday ilamana ay istaagin halkaas oo kale markay soo maraysa ayay tiri farxiyo hee walaale baa iri waxay tiri caruurta yar yarka ah oo la weysanaa ayaa masjidka la keenay baa liir oo u socda inta markay tirina waa i dhaafeenba caruurta yarka waa caruurta adii leeyahay labada waaweyn ayaga waa yani waa laga warhayaa laakiin kuwii yar yaraa meel la geeyay malo aadna waa uga walwalaa runtii ilmahaas marka halkaas oo kale markay soo maraysa aan gambarkii ku fadhiyo oo quraankii akhrinayo ayay waxay igu dhahday farxiyo hee walaale baa ir wayna soconayaan uga way baasayaan caruurtii yar yaraa oo la weysanaa ayaa masaajidka la keenay baa la yiri oo aan u soconaa inta markay tirina waaba i dhaafeen inta hadalkii markay ku goysay i dhaafeena anigii gambarkii saan ma ugu fadhiyay kitaabkiina saan ma u haystay intaan gambarkii ka degto oo jilbaha dhulka dhigtay ayaan ooyay oo waxaan leeyahay alxamdulillah ilaahu wada mahad iskale alxamdulillah ilaahu wada mahad iskale waana ooyay waxaana la ooyay farxadda ilmaha yararka oo masaajidka la keenay baqisada Ilaahay then waxaan isleeyahay ma jiifin 4 daqiiqo baan isleeyahay laakiin Allahu a'lam intaan jiifay laakiin waqtiga aan jiifsaday iyo wuxuu dhan waxa isleeyahay 5 daqiiqo ma dhamay oo intii waana jilba joogsanaya jilbahan dhulka dhigtay gamciina kora u taagay mahadnaq baana ku jira waana ooyaya baan waxaan ku soo booday aniga markii qofku ooyo Soomaaliya inuu dhaho fiq inuu dhaho anoo ilmo iga daayso oo fiqle oo faraxsan oo farxadii la ooyay ayaan soo booday hurdadiina sidii bay iga tagtay waa fariista Ilaahay baan bariyay Ilaahayna waxaan rajaynayaa ducooyinkeena kuwa la aqbalo inuu naga dhigo uusan ducooyinkeena kuwa la radiyo oo lagu tuuro uusan naga dhigin insha Allah Faadumo waxaan rabaa inaan ugu bashaareeyo insha Allah dad caalimiina oo runtii cilmi badan ayaan in badan u bashaareeyay laakiin aniga gabadhaas marka arrimaheeda qiimeeyay insha Allah arinteedu khayr ay ku dhamaanaysaa waxaa jira sida Ilaahay quraankiisa noogu sheegay wacasa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum shay baa jira aad karaahsanaysaan aad dhibsanaysaan laakiin khayr idin ah aayadaas ayaan anu rabaa inaan Faadumo ugu bashaareeyo arinteeduna insha Allah ta'ala waxay noqonaysaa mid fudud oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa saadiq cid ka saadiqsan aysan jirinin quraankiisa ayuuna Ilaahay ku yiri waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra qofkii Ilaahay ka cabsada arintiisa Ilaahay wuxuu ka dhigaa mid fudud insha Allah arinta Faadumo insha Allah waxaan rajaynayaa inay anagu hadda dib baan u aragnaa laakiin ayba tahay
khayr seebay u noqonaysaa qof 7 ilmood laga qaatay kii 8aadna loo sacabtumanayo waxay khayr ku noqonaysaa dhanka wanaagsan ayaa wax laga eegaa insha Allah tacaala bal ka warrama haddii arrin ilmaheedii ilaahay uu qoray inuu soo celiyo ayadana iyo xaajigeedana ilaahay intaan uu imtixaan uga dhigayo waayo waxaan ognahay ambiyadii iyo nabiyaashiiba waa la imtixaamay markii la imtixaamay oo imtixaanka ay ku baaseenna arrimahoodii janno iyo darajo ayaa ilaahay ugu bedelay bal ka warrama haddii samirkooda la tijaabinayay oo imtixaankii samirka intay ku baasaan ayagana jannatul firdaws ilaahay abaalkooda ka dhiga awlaadoodina u soo celiyo soo khayr ma ahan soo meeshaas kama soo baxayso casaan takrahu shay-an wa huwa khayrun lakum marka walaashi Faadumo waxaan ugu bishaareynayaa insha Allah samirka iyo iimaanka ilaahay ku quweeyay waxay u eg tahay in lagu imtixaamayay imtixaankiina aad ku baastay insha Allah awlaadaadina ay ku soo noqon doonto walaalaha Soomaaliyeed fiidiyoga waa si dheeraaday waan soo gabagabeynayaa waxaan idinka codsanayaa walaalayaal ilaahay dartiis gabadha walaasheena oo arinteeda hadda ay ugu sii daran tahay asbuuci ka bacdi insha Allah inay isku diyaarinayso dhalmo ilmahaas ay dhali doontana la rabo in la qaato waxa idinka codsanaya qof walba oo ilaahay dartiis inaan ilaahay musiibadaas oo kala kula kulmin ilaahayna ayada imtixaanka adduunyo iyo midka aakhiraba uu fududeeyo awlaadeedina u soo celiyo ina gurigaas musbaaxi iyo iftiinkii ka daarnaa ilaahay dib inuu ugu soo celiyo ina ilaahay u baridaan qof kastow ina ilaahay hortiis istaagtid oo laba ragcadood ilaahay darti u tukatid gabadhaas si qalbi saafiya niyad saafiya leh ugu soo ducaysaan insha Allah hadii ilaahay yiraahdo muslimiin badan baa u ducaynaya waqtiyo waliba waxa waaye fadli dheeriya lahaa oo ay kamid tahay Ramadaankii 10kii dambe ayaa si gooniya gabadha loogu ducaynayay aan u wada ducaynay alxamdulillah ilaahay waxa ka rajaynayaa khayrku waa soo daahaa oo waxa weeye waxa ogtiin asxaabadii markii ay dagaalamayeen oo guryahoodii ay ka haajireen oo rafaadka badan ay mareen ay niyada iska dhaheen talow intaan oo dhan baa rafaadaynaa goorma anagu guuleysanayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu u bishaareeyay oo wuxuu ugu bishaareeyay fatxul makka suuratu idaa jaaba soo degtay oo loogu bishaareeyay nasriga ilaahay inuu imaanayo oo laga wado fatxul makka inay muslimiintu makka ay furan doonaan marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan ducooyinkii muslimiinta uusan cidlo ku tuurin laakiin nasrigu uu imaan doono insha Allah wixii soo daha ayaana qayb ku jira laakiin aynu soo ducayno aan ducada gabadha ku soo kaalmayno insha Allah tacaala hadalkii waan ku dheeraaday codsiga maanta Soomaaliya waxa weeyaan gabadha walaasheena hooyada qof walba oo hooyo ana waa dareemi karaa inaynu u soo ducayno rag iyo dumar si wada jir inaynu ugu soo ducayno dad baa jira waxa waaye yani ducadooda aan la soo celinayn insha Allah intaas oo qof haday u ducayso khasab waxa dad ducadooda la aqbalayo in laga helayo marka aynu si niyada oo qalbi saafiya leh aan u soo ducayno insha Allah intaas rabi maanta ina idinka codsano waan rajaynayaa ina codsiga aad tixgelin doontiin insha Allah tacaala aad iyo aad u mahadsantihiin hadii ba halkan soo gaadhay waa mahadsantahay hadii aan ugu cusub tahay subscribe hadaa hore inoo joogtay thank you so much like iyo comment iyo share insha Allah waa dhankiina asxaabteeda qaaliga aad u mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh